بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكا برانو ويديمهان كلا what is a risk control and what is a risk financing. أن كبلونو إن أن قيحنو risk control وانا نظام كحكمين تقصارها كا أو لوغو تلقالي إن لوغو يريو سو نقنقشادة إيا درنان تقصارها تصالي waxaad leedahay maqaayad maadaama ay dhici karto inuu dab ka kaco maqaayada keeni kartana in naf iyo hanti intaba uu salfado ama uu waxyeelayo ayaad sida sawirka idinkaaga muuqata waxaad ku sii xiri kartaa system marka uu qiiq soo uro qaylinaya haddii laga jawaabi waayana waxa uu bilaabayaa in uu biyo ku rusheeyo maqaayadii sidoo kale waxaa jira debdemis sida sawirka idinkaaga muuqda ku jira birta guduudan looguna talagalay in lagu damiyo haddii uu dab kaco haddaba qaababka loogu diyaar garoobayo ama looga hortegayo in lagu yareeyo khasaaraha ayaa loo yaqaanaa risk control. aan u soo laabano in aan qeexno qaybta labaad ah risk financing middaa oo ah nidaamka ama halka looga helayo lacagta lagu maalgelinayo ama qarashka lagu dayactirayo marka uu dhib dhaco kadib. si kale haddaan u dhigno waa halkee laga helayaa magdhow marka uu dhaco dhibka kadib. tusaale haddii aad maqaayad leedahay kana diiwaan gelisay ama aad u samaysay caymis gubashana ay timaado haddii shuruudihii lagu heshiiyey aad buuxin kartid waxa aad magdhow ku leedahay shirkadda caymiska. haddaba dhibkii marka uu ku qabsaday kadib waxaad magdhow ka heshay shirkadda caymiska nidaamkaasna waxaa loo yaqaanaa risk financing. haddaan soo koobno labada nidaam ee aan ka soo hadalnay waxaan dhihi karnaa risk control waa sidee uga hortagi kartaa kuna yarayn kartaa khasaaraha halka risk financing uu yahay marka uu dhaco dhibka kadib sidee uga soo kabsan kartaa oo aad magdhow ku heli kartaa. xog dheeraad ah oo ku saabsan caymiska iyo maaraynta khasaaraha ka dhageyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.